تي أمور runtii halis ku ah ama mu'aamaraad dalkan loo soo maleegay oo la doonayo in bulshada reer Somaliland la iskaga hor keeno taasi oo leh wajiyaal badan kow in la shaki geliyo maalgashadayaasha Somaliland ee dalkan waa ogeydeenoo xalay ugu dambeysay waxa miidiyaheena ka baxayay waa ogeydeen waxaan u aragnaa haddaanu nahay xusbiga ucid oo aan u hadlaayo markaanu ka tashanay arrinkan foolxumada badan oon mid keliya ahayne lagu weerarayo maalgashadayaasha dalkan Soomaaliyeed ama muwaadiniintiisaba oo ka imanaya cadawiyada koowaad ee dalkani leeyahay waa ogtihiinoo dad badan ama dalal badan oo aynu jaarnahay ama dunida ku nool ayaa hor taagan ama aan ogolayn gooniisu taagga jamhuuriyadda Somaliland waxay ka mid tahay tani marka muwaadiniintiisa oo aan xaq ugu lahayn loo soo maleegayo mu'aamaraad loona soo dhex marayo kooxo yaryar oo iskaashaday oo aan qabo inaanay xukuumaddu ka warhaynin hase yeeshee waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay cid kasta oo falalkaasi ku shaqo leh ay tallaabo degdega ay ka qaado waxa iyaduna baar socotaa been abuurro kale oo soo gelaya miidiyaha waraaqo aan asal lahayn oo la soo gelinayo iyo qaar asal lehiba way jiraan oo ay soo gelayaan dad u shaqeeya xukuumadda waxa aan marnaba dhacaynin waxaan maanta soo qaadanayaa maahmaadii maxamed xaaji ibraahim cigaal uu Jabuuti ku yidhi takartii maroodiga dal fuushanayd ee ku tidhi waan duulayaa ee isadkee maroodigu wuxuu ugu jawaabay kuma baan ogeyn buu yidhi inaad dul saaran tahay Somaliland waa maroodigaas mu'aamaraadka laga soo abuurayo Jabuuti ee lagu khalkhalgelin la rabo in lagu khalkhalgeliyo xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland iyo muwaadiniinteeda isku duuban oo isku mid ah waxaanu leenahay maroodigaasoo socon mayso takaray ama duul kuma baanaan ogeyn kiiska loo haysto ee maalmahan ay idin maqlayseen ee ganacsadahaasi weyn ee warshadaha dalka ku leh ee maalgelinta badan dalka ku leh ee muwaadinka waxaanu u aragnaa inuu qalad yahay waa maqlayseen oo ilaa xalay waxa la lahaa waxa la qabanayaa cabdiraxmaan baa la qabanayaa waay maxaa dhacay waa marka hore adduunku xeerar buu leeyahay Jabuuti ma aqoonsana Somaliland Somaliland cid u dhalatay oo xeerarka caalamiga ah ay qabanayaan khaasatan dalka Jabuuti kuwa gaarka aynu la galay mooyaane ma jirto xamar buu aqoonsan yahay markuu leeyahay muwaadin reer Somaliland ah la soo qabto Jabuuti laga leeyahay waxa weeyaan waxaan u aragnaa inay tahay gef iyo isku dir iyo cid kasta oo kula shaqaynaysa inay runtii khaldan tahay xeerarkaasi nama qabtaan maxkamad waxa kaloo iyaduna runtii xaaraana kiis madani meel walba uu ka dhacaa kiiska madaniga halkuu ka dhacay ayuunbaa lagu qaadi karaa inkastoo aanan loo yarahayn
waxaan soo marnay looyaradii, waxaan soo marnay maxkamaddii, waxaan soo marnay wasaaraddii cadaaladda. intaaba waxa uu noo caddeeyeen in kiis madani hadduu ka dhacay berbera in berbera u lagu qaadi karo. cidda beddelan kartaa inay tahay qofka markaasi la dacweynayo ayaa beddelan karaa oo magaaladu joogo u qaadan karaa. laakiin qofka dhibbana sheeganaya waxa weeyaan kiisaska Jabuuti ka dhacay cidday isku haystaan hadday sharaa'ig tahay iyo hadday tahay ganacsato hadday tahayba wax allaalo wax ka khuseeya Somaliland ma jirto. kiisku halkuu ku dhacay inuu ku egaado ayaanu aaminsanahay, sharciga iyaguna bannaynaya. waxaan leenahay muwaadiniinta reer Somaliland waa inay fahmaan maleega iyo xadhkaha qalloocan ee xilliyadan dambe loo soo maleegayo ganacsatadeenna ummadana lagu qaybinayo. waa ogeydeenoo Al-Jazeera habeenkii dhoweyto wixii ay ka sheegaysay dahabshiil ee been abuurka ahaa iyo dhulka lagu qabtay inay xamar iyo Jabuuti ahaayeen. ganacsatada dagaal badan baa ku socdaa, dalkan buu ku socdaa, weerarku wuu ballaadhan yahay. waxaanu leenahay xukuumadduna inay u dhug yeelato dadka reer Somalilandna uu fahmo oo goldaloolooyinka ka muuqda xukuumadda inay iyaduna iska daboosho ee iyada la soo dhex marayo. waxaan u aragnaa kiiskaasi inay soo maleegeen cadowga Somaliland iyadoo lagula dagaalamayo maalgashadayaasha ku soo qulqulaya jamhuuriyadda Somaliland. marka sidaa leeyahay hadda xukuumadda u hadlimaaya ogaada xusbi mucaarida aan ahaano, laakiin dalku inuu wanaagsanaadiyo in la yimaado dee diyaar baanu u nahay. hayga duwana hadalka yaryarkaan u sheegaya intaas ayaan ku soo xidhaya. wassalaamu calaykum. xogaye waxaad sheegtay in kooxa yaryar arrinkan ay wataan inay xukuumaddu aanay ka warqabin. waxaad leedahay xukuumadda ayaad baaq u diraysaa. waxaad saxeexday wasaaradda cadaaladda, wasaaradda arrimaha dibadda, xeraalinta. maxaad uga warwareegaysaa inaad xukuumadda ku dhaliisho? xukuumadda runtii waan ku dhaliilay. anigu xukuumadda kama warwareegaye waxa weeyaan runtii awoodaha ay xafiisyadeenu kala leeyihiin. wasiirkii waanu u tagno dee uu ila socday xogayuuye anigu ma saxeexin buu yidhi, caddaymiina wuuna tusay. laakiin waxaa saxeexay waraaqaha la saxeexay annagu raggii saxeexay waxaanu leenahay waa dembiilayaal, waa in kiis lagu qaadaa. baaqaan u dirayaana waxaan la hadlayaana markaan saa leeyahay madaxweynaha dalka ayaan la hadlayaa, maaha kama warwareegayo. maxamed aadan ismaaciil maxamed shiglan, shabakadda caalamiga ee Harunag News, Hargeysa.